halkaana hore laga wada sheegay aamina gabadheeda ay ahayd aad iyo aad ayaa waxay ahayd iyo qofkay ahayd loo sheegay gabdho badan iyo wiilal badan ayaan macallin usoo ahaa ama maamulo usoo ahaa ama madaxweyne usoo ahaa sida aaminaba aan u ahaa hase yeeshee in yar oo ka mid a ayay aamino ka mid ahayd oo aan aad iyo aad igu qiimi dheeraa welina inta noolna ay igu qiimi dheer yihiin sababtana ay uga duwan yihiin kuwo kaloo badanoon ama macallin usoo ahaa jiray ama maamulo aan usoo ahaa ama madaxweyne aan usoo ahaana waxay ahayd aamina waxaan ka midaysnayn qiyamka yacni ay aaminsanayd iyo kan aan aaminsanahay ayaa isku soo dhacay waddadeenu halkaas isaga soo dhacaysay waxa ay u taagneyd iyo qofka ay ahayd waa wixii ay meeshaan ka hadashay waxa ay ka hadlayseen waad arkayseen idaacado ay ahayde guryo dhexdood iyo maxaan ku rahdaa meelo yaryaroo dad yaryar jooga ma ahayn telefishinka shabeelle telefishinka goobjoog telefishinka waa arkaysa iyo kuwo kaloo badan intani waa in yar intii ay aamina muxuu ahaay ay tiri waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan aamino waa u ducaynay waana u ducayn doonaa haddii alla yiraahdo laakiin hal mid inaan uga abaalgudno wixii ay aaminsanayd wixii ay u taagnayd inaan aaminno aan u taagnaano dhiiranaanteediina inaan qaadano oo aan dhiiranno cabsidu wax badan nooma tarto cabsidu waana soo xirxirtaa caqligeennay soo xirtaa cibaadadeennay soo xirtaa dadnimadeennay soo xirtaa dhinac walbay soo xirtaa haddana inta caawada muxuu ahay culimmadii muxuu ahay meeshaan ka hadashay oo dhan khayr allah siiye iyo inteenna caqiidada islaamka aaminsanba waxaan aaminsanahay qofka maalintii iyo daqiiqadda uu dhimo lahaa sida ilaahayba u caddeey inaan daqiiqadna lasoo hormarinayn daqiiqadna aan la dabamarinayn marka maalintaad dhimo lahayd haddii aad dhimanayso oo aadan muxuu ahaay derbiye aad adag isku wareeji ama muxuu ahay meelgal aanad ku badbaadayno saacaddaadii aanay saacada ku darsoomayn waxaa aakhirada aad aadaysa ee markaad dhimato meesha aad tegaysa kaa anfacayo samee cibaadada shaksiga ah ee qofka muxuu ahay muslimka laga rabo ka sokow ummadda midaad u samaysaa macno badan samaynayso qofka muslimkaa waxau sameeya maxaa la yiri ugu fiican qofka xaakim jaa-ira hortiisa inta istaaga yirahdo waxaad samaynaysa khalad waaye aaminana waxay ku sifaysnayd intaasi ahayd soomaaliyeed walaalaheeyo wax badan aan u baahanaa inaan ka tanasulno iska dhaafno laakiin caawi waxaan rabaa waxa ugu horeeya oo aan dadka ku adkaynayo waxay tahay cabsida iska dhaaf cabsida iska dhaaf waxaa khaladka ah ee nolosha bini aadamka ku khaladka ah ee maxaanku irahdaay aakhirada muslimiinta ku khaladka ah ee sharafta iyo karaamada walaqad karamnaa bani aadama ilaahay ayaa yiri bini aadamka oo muslim iyo gaal uuna kala saarin ayuu yiri waa karaameyn karaamadaas ilaahay qofka uu karaameeyey mid kale oo asna ilaahay u abuuro khalqi ah inuu inta soo istaago uu karaamadaas inuu dadka ka qaado oo isku dayo inaan aqbalna ma aha qofku wax waa ku qaldami karaa waana loo sheegi karaa waana ka soo noqon karaa laakiin magow wax inta ku qaldamo oo kuwo u sacbiyo oo yeesho oo kuwo maxaanku irahdaa u qoslo oo yeesho oo kuwo waxaasi uu sameynaya uga sii daysado ayaguna sii sameeyo oo sii yeesho waa dunuubtii waa dembigii oo dembi lagu daro dembi kale lagu sii daro mid kale lagu sii saddex jibaan aan dhiirano xaqa aan ku dhiirano waxasan aan ku dhiirano cibaado ayadaasa ugu horeyso waxaan ka hadalnaa dadka siyaasiyiinta haddaan nahay waxay tahay mustaqbalka ummad dhan oo jirta ayaan ka hadalnaa sayidina cumar radi allahu canhu soo ma ahayn mas-uuliyadda qofka mas-uulka oo mas-uuliyad xambaara markuu ka hadlaya faraska ku kufaa muxuu ahay ciraaq waxaan ka baqayaa in ilaahay aakhiro weydiiyo maxaa waddo ugu sameey wayso uu kufay haddee inta ka soo harto qof bini aadama iyo noloshiisa iyo mustaqbalkiisa iyo karaamadiisa iyo sharaftiisa iyo diintiisa ka waran
yaanan ka gabanin yaanan ka cararin yaanan qofna anagoo ku dulminayna aan dhihina anagoo ilaahay ugu dhowaanayno oo maslaxadda ummadda ugu dhowaanayno oo danta ummadda ugu dhowaanayno aan sheegno waxa saxda ah aan diidno waxa khaldan kan wax qaldayaa kuma dhiiranayo markuu arko dadku inay diidayaan kuma dhiiranayo markuu arko qofaf soo taagan oo maya dhahayo oo aan baqin lagu arko laakiin markuu inta khaldamo kuwa qalbiga ducafada ka ah oo diinka daciifka ka ah oo garashada daciifka ka ahna ay ku taageeraan qofka iska gabado iska aamusa asaa dadka ugu daciifsan ilaahay idankiisa dii alla yiraahdo wixii ducaa horaa loo yiri in badanna aamin waa usoo ducaynay maantay dhimatay ilaa maanta haddana waa usii ducayn doonaa haddii alla yiraahdo in badan oo kale waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan uga tacsiyeeyo gaar ahaan maamulkii ay ka tirsadeen Hirshabelle oo madaxweynuhu ugu horeeyay inaan uga tacsiyeyno ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo intii maalin aamina la soo macaamushay oo aan ku kalsoonahay hubo inay jeclaadeen aamino oo ay macaamilkeeda iyo suluugeeda iyo akhlaaqdeeda ay ku jeclaadeen inaan uga tacsiyaan rabaa aniga gabadhayda ahayd si gaara ayay macno iigu lahayd waxaana macno iigu lahayd waxa ay aaminsaneed iyo qofnimadeeda waxay aaminsaneed waxa ay ku hadaaqi jirtay waxa ay u taagneed intaas waa intaan runtii aan mar walba aan ku xasuusto oo aanan marna aanan qalbigayga ka go-in qof toosan ilaa waxbarashada ilaa masters degree ka gaartay oo la sheegay diintana iyadaaba is sheegtayba waxa ay aqoonteeda diinta meesha ay gaarsiisan tahay wadaadka Sheekh Maxamed Muuse halkan yimidna waa kii sheegay macalinkeeda ahaa haddee qof intaa isu darsatay siyaasadda soo gashay maanta u taagnayd aamina inay inta soo qaadato kursiga ay inta timaado ay ku shaxaatanto uma dooranaynin ra-iisul wasaarihi halkan joogay oo inta ka sheegay dalkan ra-iisul wasaare soo anaa madaxweyne 4 sano soo ahay dad ayada wax u raadinayso ku soo galay qof ayadoo qofkan waa la dulmiyay darajo lahaaya laga reebay sarkaalkan ama muxuu ahaay waxaan uu mudnaayo uu waayay ama dhibaatadana meel hebel ka jirto ama qofkaana dhibaataysan taa shakhsi dhibaataysan oo ama deemaysan ama magaciisa soo aragta xataa qofkan waa deemaysan waa saalim maxaa loo qaban karaa war hebel qof telefoon u dir oo hebel muxuu ahaay mushkiladaas xal saasay ahayd kuwii ku daysado oo wixii sameey jirtay sameeyay Allah naga dhigo kuwii waxay u taagnaadana Allah naga dhigo aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh هذا ما سنتها مدحوينه و